Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyadii ismiidaaminta ah ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Wararku waxa ay sheegayaan in laba nabadoon oo caanka ah magaalada Beledweyne weerarkaasi lagu dilay, kuwaas oo magacyadooda lagu sheegay nabadoon Aadan Raaxa Jecel iyo sidoo kale nabadoon Elena oo kamid ah nabadoonada ugu waaweyn ee beelaha dega magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Wararku waxa ay tilmaamayaan inay jiri karaan khasaare intaa ka badan oo isugu jira dhaawacyo iyo sidoo kale dhimasho soo gaaray qaybihii kala duwanaa ee ku shirsanaa gudaha magaalada Beledweyne ee gobolkaasi, halkaas oo la xaqiijiyay inta qarax uusan ka dhicin inuu ka soconayay kulamo iyo sidoo kale abaabullo la doonayay in qayb looga noqdo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa ilaa hadda kacsan, iyadoo wararku ay tilmaamayaan ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamulka gobolka Hiiraan halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo lagu xaqiijinayo guud ahaanba ammaanka halka qarax uu ka dhacay. Inkastoo weli tirikoob rasmi ah aan laga helin khasaaraha rasmiga ah dhimashada iyo dhaawac, haddana wararka horudhaca ee la helayo ayaa waxay tilmaamayaan in khasaare kala duwan uu soo gaaray nabadoonada iyo sidoo kale saraakiisha iyo qaybihii kala duwanaa ee iyagu halkaasi ku sugnaa inta qaraxa aanu dhicin. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in hadda gudaha isbitaalada magaalada Beledweyne ku yaala la geeyay qaar ka mid ah dhaawacyadii ka dhashay weerarkii halkaasi ka dhacay. Xaaladda ayaa hadda ah mid cakiran, iyadoo saraakiisha iyo sidoo kale maamulka degmada intuba weli faahfaahin rasmi aysan ka bixin xogta iyo sidoo kale xaaladda guud ee magaalada, balse dadka deegaanka ayaa iyagu waxay xaqiijiyeen in agagaarka iyo sidoo kale meelaha ay ka dhaceen qaraxyadu ilaa hadda ciidamada ay si weyn ammaankooda u adkeynayaan. Wixii kusoo kordha wararkaasi saaxiibayaal kuwa soo aadan ayaad ku daawan doontaan.